الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مسؤولينta munaasabadan shaacinta imtixaanka nagala soo qayb galay ee isugu jira heer gobol iyo heer degmo iyo mas'uuliyiinta bulshada rayidka iyo dalladaha waxbarashada dhammaan ka soo qayb galayaasha munaasabadan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib, alxamdulilah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh maantay si nabada isugu kaaya keena halkan innagoo ku wada faraxsan shaacinta imtixaanka shahaadiga ah ee heerka koobaad ee dugsiyada dhexe. runtii dugsiyada dhexe iyo sare mas-uuliyaddooda ayaa maamulka gobolka banaadir waaxdiisa waxbarashadu ay gacanta ku haysaa oo aan kala soo wareegnay wasaaradda waxbarashada 3 sano ka hor. imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe ayaa maamulka gobolka banaadir uu qaadaa. wasaaradduna imtixaanka dugsiga sare ee dalka oo dhan ayay qaadaa. taas macnaheedu waxa waaye in ardayga u socda jaamacadda imtixaankiisu uu noqdo mid la wada og yahay natiijadiisa iyo qaabka imtixaankaasi uu u dhacayo, oo wasaaradda ay qayb ka noqoto. ujeeddadu waa sidaas. sidaa darteed gobollada oo dhan iyo wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa si wada jir ah waxa ay u qaadaan imtixaanka dugsiga sare, laakiin gobolladu wasaaradahooda waxbarashada ayaa si gaar ah uga mas-uul ah oo qaada imtixaanka dugsiga dhexe. macno horta waa sidaas. la soo wareegista waxbarashada ama la soo wareegista arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada wax iska yimid ma ahayn. waxay ku timid culays bulshada banaadir u gaar ahaa oo ka haystay dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka. mar haddii ay yihiin ubadkeennii wax toos ugu dhacaya dhibaatadaas taagan, ama hooyooyinka iyo caruurta toos ugu dhacayay marka la yidhaahdo xagga caafimaadka aasaasiga ah, arrintaas xanuun badan oo ay ku keentay bulshada reer banaadir ayaa nagu dhaliyey inaan la fadhiisano wasaaradda, fahamsiino khaladaadka ka jira meeshaas iyo dayacaadda bulshada reer banaadir ka haysata dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka. markii wasaaradda aan arrintaas u ifinay oo aan tusaaleynay, mas-uuliyiintii xilligaas joogtay ee wasaaraddu si buuxda ayay noola fahmeen. wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ayaan u jeedaa ee federaalka ah. halkaas ayay ka timid in lagu soo wareejiyo maamulka gobolka banaadir arrimaha waxbarashada iyo arrimaha caafimaadka.
maantay munaasabadda aan joogno waa arrimihii waxbarashada ayadaan rabaa inaan marka tafaasiil yar aan ka bixiyo. arrintaas markaa waxay ku timid sida aada og tihiin dhicitaan aan caadi ahayn oo aan la mid ahayn gobollada iyo adduunka intiisa kale oo u gaar ah reer Banaadir ayaa dhowr jeer soo noqnoqday. arrintaas waxay dhalisay isweydiimo badan. waxaa la sameeyey tirakoob bulshada Banaadir oo dhan lagu samaynayo carruurta gaartay waxbarashada. marka waxaa la soo ogaaday waxbarashada horta inta aadaba inay tahay 12% carruurta gaartay da-da waxbarashada. 12% ayaa horta waxbarashada aadaba oo dugsiyada aada. waxaa kuu jooga guriga ama waraf iyo istuuriyeys iyo dhibaatadan hadda qaati laga taagan yahay mashquul ku ah 88%. isla markaas 12 aada iskuulka oo 12% iskuulka aadana tayadood waxbarashadu aaday u liidatay. maxaa yeelay ma jirin wasaaradda federaalka ah iyo iskuulkan ee ardayga cid u dhaxaysay oo mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay ma jirin. marka laga reebo dalladaha oo ayaguna iskuullada isku hagaajintooda wax noocaas ka shaqeynaya. marka mas-uuliyad heer dowlo ah oo bulshadan yacni mas-uuliyadi ka saaran tahay xagga dowladda ma jirin markaas. markaan si kale u dhigo maamulka gobolkuna yacni xil kama saarnayn ama mas-uuliyad iskama saarayn ama loomaba ogolayn. midka degmadana sidaas oo kale u. marka maamulka degmadu problemka ama dhibaatada taaga waxba kama qaban karo, kii gobolka waxba kama qaban karo, dhibaatadiina waa jirtaa. sidaan ognahay yacni wasaaradaha reer federaal waxay ku yimaadaan qaab siyaasadeed oo isaguna ku base garaysan 4.5. marka 4.5kaas unbaa laga fikirayaa yacni sidii ardaygan miskiinka ah iyo mataqaana hooyadan masaakiinta ah nuujinaysa ama uur kale ee daawo u heli lahayd, cunugaana uu ku heli lahaa waxbarasho. mas-uuliyad gaar oo iska xilsaar ma jirin marka laga reeba midda guud oo heer federaal. marka si isla xisaabtankaas hoose iyo nooleynta bulsho ee xagga caafimaadka iyo waxbarasho ay u dhalato ayaan arrintaas ugu tabliiqinay. wasaaradaha la fariisanay, fahamsiinay dhibaatada jirta meelo badan. ayaguna waan uga mahad celinayaa runtii madaxdii markaa joogtay si buuxday arrintaan noola fahmeen. halkaasaan horta ka ambaqaadnay. kadib waxaan dhisnay agaasinka waxbarashada oo markaas yacni dadkii ahlu beledkan ahaa ee waxbartay ee jaamacadaha joogay ama ka shaqeynaya wasaaradda lafteeda ama qeybaha kale waxbarashada kale privatyada ka shaqeynayay intii ugu muuqaalka rooneyd ama eliidka u ahayd ayaan arrintaas ugu yeernay si voluntary ah oo mutadawacnimo ah ayay nagala shaqeeyeen kadib markii aan codsigeena u jeedinay iyo baahida haysata bulshada Banaadir. runtii dadaal xad dhaaf ah ayay sameeyeen. waxaan rabaa maantay
mahadnaqa allah ka sokow inaan hortiina uga mahad celiyo dhalinyaradaas agaasinka waxbarashada intay waxbarteen haddana ku fikiray inay arday taya leh ay soo saaraan kuwaasoo maantay presentationkii halkan laga soo jeediyey ama bandhigaystii halkan laga soo jeediyey aad ka garan kartay sida loo dadaalay. runtii meeshii aan u soconay maana wada gaarin oo weli wax badanaa noo sii dhiman, laakiin tubta aan haynaahay ma aha tub xun oo aad ayay u wanaagsan tahay. waan rajaynaynaa oo rajo fiican ayaan ka qabnaa haddii sideedaas aan usii hayno inaan gaarayno waqti aan fogeyn hadafka tayeynta waxbarashada iyo ubadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan inay soo gaaraan levelka akhris qorista. haddii bulshada halkan ku nool kuwooda da-yarta ah ay qaan gaaraan iyadoo 88% ayay waxna qorin waxna akhrin, waxaad garan kartaa negative-ka ama dhibaatada yacni ka imaan karta oo uga imaan karta xagga horumarinta bulshada iyo horumarinta dalka. marka in waxbarashadii la fududeeyo, la helo iskuullo maamulka gobolka Banaadir uu leeyahay ama dowladdu ay leedahay ee free ah oo aan lacag laga qaadayn, laguna dhiirigeliyo ardadii inay iskuulladaas soo aadaan oo ay dhigtaan, ayaan u qaadanay u fahamnay inay tahay midda looga bixi karo 88% aan iskuul aadin ee guriga iska jooga. markaan arrintaas sababtay ku dhacda sii baarnay waxaa noo soo baxday ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ku nool, waxay u badan yihiin dad danyar ah. marka dadkii danyarta ahaa ma awoodi karaan inay carruurtii quudiyaan oo qoyskii ay dabka u shidaan iyo inay waxbarashadii ka bixiyaan. taas ayaa keentay in laga fikiro yacni inaan dabku damin oo qoyskaas dabkiisa la shido la quudiyo, laakiin waxbarashadoodii la awoodi waayo. taasaa keentay marka inaan annagana ka dowlad ahaan, ka maamul gobol Banaadir ahaan aan kaalinteena qaadano oo aan helno iskuullo aan ardayda lacag looga qaadayn ayaan iyadana ku dadaalnay si markaas yacni waalidka kaalintii dabshididka iyo quudinta hadduu qaatay kaalintii kale ee waxbarashada ubadka ay annagana u qaadano. runtii iyada lafteeda nooma dhammaystirna oo ardada yacni gobolka Banaadir ee gaartay da-da waxbarashada baahidoodii waxbarasho bilaash ah ama free ah ma wada xaqabtirin, laakiin way noo bilaaban tahay inaan dhammaystirno. taasna waa midda aan u soconno oo aan rajaynayno insha allahu tacaala. mudanayaal iyo marwooyin, waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid ah yacni maadooyinka celcelis ahaan ku adag ardayda oo ay ka mid tahay carabiga, uu ka mid yahay Englishka, maadada kale maxay iyo tarbiyada. tarbiyada iyo carabiga markaan soo qaato, waxaa lagama maarmaan ah cunuga markuu yar yahay kow in dugsi qur'aan la geeyo, markuu soo gaaro yacni inuu kitaabka qur'aanka akhrin karo, markuu soo gaaro af Soomaaliga iyo xisaabta basicana la baro, ama private ha laga baro ama guriga ha lagu baro. laakiin haddii aad tidhaahdo private na gey, dugsi qur'aan na gey,
mataqaanaa iskoolka kalena u dir wixii hal mar haddaa u dirtid yacni maskaxdiisu capacity uma leh awood uma leh inuu waxaasoo dhan oo hal mar isku wada qabto marka cunug waa yaryahay waa 6 jir ama 7 jir wax saas oo kale marka in la kala hormariyo oo marka koobaad dugsi quraanka la geeyo markii dugsi quraanka uu soo gaaro inuu akhrin karo kitaabka oo cashirka loo yeeriyo oo dhigan karo marka kadib in af Soomaaliga loo dhigo mararka qaarkood waxaad arkaysaa cunugii af Soomaali looma dhigin dugsi quraan lama geyn iskuulka lagu bilaabay iskuulkina wuxuu u bilaabay ABC marka ABC marka loo bilaabo يعني ABC waxa waaye waa alifbeetadii Englishka waay tii Soomaaligana ma yaqaan waxaad arkaysaa kuwa marka jaamacad ka soo baxay oo marka ay text messages ama waxa fariimaha qorayaan ku soo daraya Z iyo P iyo ereyadaas marka af Soomaaliga kuma jiraan marka af Soomaaliga gaar uma baran marka laakiin qofkiina waa qof waxa yaqaano ilaa marxalad jaamacadeed ayuu soo gaaray marka in cunuga laga soo bilaabo dugsi quraanka oo horta meel soo gaaro dugsi quraanka xoogga la saaro inuu kitaabka akhri karo cashirka loo yeerin oo dhigan karo haddii dugsi quraanka waxa laga yaabaa inuu 2 sano 3 sano ku qaato oo weliba ay ku adag tahay inuu kitaabka akhriyo taas marka waxay u baahan tahay intuu akhriska ka gaaro dadaal gaar ah in si gaar ah yani looga warqabo gacanta lagu hayo taas marka waxay u suuro gelinaysaa inuu carabiga fahmi karo ama uu qori karo markaas tarbiyadana uu ku fiicnaado carabigana uu ku fiicnaado midda labaad in hadda dugsiyada dhexe hoose dhexe lagu dhigo af Soomaali waxa loola jeedaa yani in cunuga horta afkiisa hooyo qoridiisa in la soo baro ayaa loola jeedaa ilaa waxa waay waxbarashada asaasiga ah waa marka oo isagoo jaamici oo zanzad iyo ku qorin macnaha af Soomaali oo qoraya ma ogtahay zad iyo p iyo usan ku soo qorin ayaa loola jeedaa macnaha marka isagoo af Soomaaliga ku fiican quraanka akhri kara carabiga heer sare ku ah markaas yani iskuulka la geeyo iskuulka marka loo dhigo English loo dhigo markaas ABC loo bilaabo Soomaalina waa haysta waa yaqaana kii Englishka iyo alifbeetadiisna markaas la baraya saas ayaa mataqaan waxbarashada asaaskeeda lagu soo qaadi karaa arrimahaas marka waa qaabkii waxbarashada caruurta yaryarka ah marka marxaladda oo akhris qorista la joogo marxaladda ugu adag uguna muhiimsan marka ilmaha waxa arkaysaa kuwa waaweyn oo level secondary soo gaaray oo haddana aan kala garanaynin shaqalka iyo shibanaha xarafka midka shibanaha iyo shaqalka marka kala weydiiso isku yaacaya arkaysaa shibane maxaa la dhahaa maxaa loola jeedaa xataa ma dhahayo baba qaanu leeyahay ma fahamsan marka xarafka xuruufta in la kala fahamsiiyo sababta shibane loo yiri kana shaqal loo dhahay la si kala fahamsiiyo waayo af Soomaaliga marka la baranayo wuxuu ka bilowdaa ba ta saasa loo baraa Sooma laakiin haddana marka shibane iyo shaqal kala fahamsiinayso waa ba ma dhihi kartid adiga waayo ba daadara markaas waxaaba raacday raacday Sooma marka waa in loo sheego inuu yahay ma dhawaaqi kartid fiiri tiidi taada markaa joogtana waa inaan ma dhawaaqi kartid maxaa yeelay haddaad ta tiraana raacday haddii ta tiraana waxaa raacday raacday haddii ti tiraana waxaa raacday raacday marka isdaas loo kala fahamsiiyo oo yani shaqalka iyo shibanuhu marka ay isla fal galaan ayaa dhawaaq iman karaa saas ciyaalka loo fahamsiiyeen waa laga maarmaan
caqabadaha marka xagga waxbarashada haysta waxyaabahaas ka mid ah inay ciyaalka ay fahamkooda u dhismo arrinta ku aadan waqtiga hadda lagu jiro iyo caqabadaha jira waxay yimiday bahasha la yiraahdo daroogo iyo waxay yimiday waxa la yiraahdo TikTok ayaa yimid yacni caqabadaha ugu waaweyn oo hadda carruurta ay wajahayaan waxyaabahaas ayaa ka mid ah marka waalidka inkastoo aan ogahay in waalidka laftiisa culayso ay haystaan waayo hooyadii haddii reerkii biilkiisa aan aabbuhu ku filnayn oo hooyadii ay noloshii raadiso waxaa meesha ka baxaya ka warqabkii iyo gacankuhayntii ayaa ka baxaysa meeshaas marka waxaa imaanaya gaab oo cunugu zagzaagi karo ayaa imaanaysa haddii hooyadii saaka intay suuqa aado oo mataqaan yaaye iyo waxyaaba ay gadgado caaw aado daalan soo hooyato inay ciyaalkii dabka u shido ma ka badin karto macnaha marka meeshaas hal doora ka baxaya waxaa laga yaabaa marka waalidka laftoodu inay mataqaana xaggaa fariiseen wax iska akri iyo wax saas ay dhihi karaan hadday joogaan xataa laakiin haddii waalidka laftiisa uusan wax baran ayadan waa caqabad kale marka carruurta guud ahaan in laga warqabo muxuu cunugan mashquul ku yahay yacni yaa saaxiib la ah kuwa saaxiibgaha la ah yacni waqtiguu soo hoydo yacni waxbarashada iskii ma u daalacdaa oo iskii ma la arkaa isagoo ama kitaabka akhrinaaya ama buuggi furaaya iskiis calaamooyinkaas oo dhan waa calaamooyin fiican waay haddii markaa cunugii oo maalin walba uu iska maqan yahay oo isagoo boor leh oo rafaadsan uu ku imaanayo oo waqti dambe leyd ah habeenkii uu imaanayo oo mataqaana isagoo buug ama kitaab furaaya aan la arkaynin calaamooyinka fiican ma aha kuwaas marka taasna sidaas in looga warqabo oo waalidiinta ay ka warqabaan ayaa lagama maarmaan ah waxa ugu badan ama dhibaatada ugu badan carruurteena haysataa marka maxay tahay teleefanadan smartphoneska la yidhaah oo waaweyn oo mataqaanaa lagu mashquulayo TikTok-ga iyo YouTube-ka iyo waxyaabaha Facebook-ga mashaakilaadkaas oo dhan waxyaabahaas ardada wax baranaysa levelkood doonaha joogay waa in lagala dagaalamaa gaar ahaan marka ay mataqaanaa marxaladda akhris qorista ku jiraan waa khatar waay markaas marka khayr alaas iyo qof iga horreeyay arrintaa ka dhawaajinayay cunuga marka taleefanka yaree niiclaha ah in lagu xafido oo aan lagu abaal marin isagoon waxba qori aqoon yacni taleefankan qaar waalidiin qaara waxaan arkay waaba isaga mashquulinaynaho waaban dhibaa marka inuu yacni waxyaabahaas ku mashquulaan baan rabnaa waayahay waxbarasho waxa uu dirin ha ku daalan adig marka ha kaa mashquulo laakiin ogow mashquulkaasu maskaxiyan waa dhibayaan waxyaabahan oo device-ka oo electrigan waa dhibayaa iftiinkaas faraha badan oo mar walba saas u fiirinayaan waa dhibayaan marka dhibaatoo dhan waaye ka soo kow dhibaatadii oo dhinaca waxbarashada uga dhacaysa marka guud ahaan waxaa waalid maamule mas-uuliyiinteenna macallimiinta waa inaan mas-uuliyad iska saarno inaan dhisno tayada ubadkeenna maxaa yeelay tayada ubadkeenna iyo waxbarashadoodu waa mustaqbalka horumarineed ee dalkeen haddii aan dadka wax la barin oo aan da'yarta wax la barin waxay ka dhigan tahay dal burbursan meel kastoo isbaaro taallo meel walboo ay iska fududahay in layska kaa dilo meel walboo mataqaanaa yacni ay corruption iyo laaluush iyo mashaakilaad yacni aada ugu tagto oo aadan weligaaba qanaaca iyo nolol aadahayn taas marka waxyaabaha naga hor istaagaya horumar iyo inaan yacni keyrkeenna hiigsano oo horumar aan hiigsano ayay kow ka tahay intaasaan rabaa inaan hadalka ku gaabiyo guud ahaan waxaan isu dardaarmaynaa inaan mas-uuliyad gaar ah iska saarno inaan soo saarno ubad aqoon leh oo badbaadiya waxbarasha yacni badbaadiya mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed berrito arrinta ku aadan tirakoobka
agaasiga waxbarashada waxaan uga fadhinaa yani sanad walba inay dib ugu noqdaan isbeddelka caruurta yani gaartay da'da waxbarashada caruurta gaartay inay dib ugu noqdaan oo yani mar walba tirakoob iyo kormeer ka warqab uu jiro imisa iskuulka aaday imisaan weli fursad u helin yani isla markaas guud ahaan ka gobol ahaan aan mas-uuliyad gaara iska saarno inaan helno iskuulle gaar ah oo iskuulle dheeraad ah aan idhaahdo oo aan yani lacag ahayn oo free ah oo ciyaalkaas la soo helay markaas yani loo diro marka intaas waa intii aan islahaa lagama maarmaan ayay u tahay bulshada reer Banaadir iyo ubadkooda waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo yani ardadii ku guuleysatay imtixaanka maanta natiijadiisa la shaaciyay iyo waalidiintooda iyo maamulayaashooda iyo macallimiintooda intaba maxaa yeelay si isku mid ah ayay farxad ugu tahay maantay natiijada imtixaanka oo ah mid baasitaan ah haddii ay tahay middan yani kaalimahana kumaba sii jirto macallinka sharafay u tahay iskuulka sharafay u tahay maamulaha sharafay u tahay waalidka sharafay u tahay ardaygana sharaf ayay u tahay farxadna way u tahay marka waan ugu hambaliyeynayaa dadaalkiina sii wada kuwa hadda maanta aan fursadda u helin in macnaha natiijada ay ku baasaan oo aad u tiro yar marka yani loo fiiriyo meeshaan ka nimid aad u tiro yarna yaysan niyad jabine ha sii dadaalaan hana ku fikiraan sanadka xigta sidii ay kaalinta koobaad ama labaad u ciriirsan lahaayeen oo ay u soo gaari lahaayeen gareedka A wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.